dhimale dadka cajiska ka kici markii dumar la sheegay sheekh wuxuu leeyahay saa'ilkan gabar ayaan guursaday anoo aan la joogin kharash badan oo ah iga baxay markaan is aragnay gabadhii gabar ma noqonin inta aan la joogayna uma sheegin niyadna uma wadayo marka meher ma igu leedahay ileen way khiyaantay oo gabar ma ahayn عالية. الحمد لله ninkaasi gabadha xuquuqdeedii oo dhammaystiran oo meher ay ku leedahay hadduu qadiyad khiyaana ka hadlayo markii horreysay u arkay buu inuu sheegtaay gabadhu la aqalgalay oo reeraystay hadhow inuuna yidhahda gabadh ma ahayn isagana ay dhici karta ninka gabadhnimadeedii jebiyey inuu yahay sax maaha midda labaad gabadh ma ahayn soomaaliga ah iyo gabadh ma ahayn ta sharcigii waxbay ku kala duwanaadaan ama gabadh ma ahayn bikra ma ahayn waay soo ma sharcigu markay gabadh iyo garoob baa jira garoob goormay noqotaa qofka dumarka ah markay gabadhnimadeeda ku weyda galmo xalaal iyo xaaraankay dooni ha noqotee gabadhnimadu waxyaaba aan galmo ahayn baa lagu waayi karaa gabadhnimada waxaan galmo ahayn bay gabadhnimada bikaaradeedu ku buri kartaa ama ku jari kartaa hadday sidaa dhacdo sharciga waa ka gabadh axkaamteedana axkaamulbikri waaye laakiin soomaaliga waxaa dhici kara qofku iyadoo meel ka dhacday ama booday bikradu way jabi kartaa sportis bay gashay baashu waa burburi kartaa baashu waa bahal ilaalin u baahan xanuun baa dhici kara sida jirka kale xubnaha xanuun ugu dhaco baa xubnaha tarankuna xanuun ugu dhici karaa xanuunkaasi wuu sababi karaa gabadha bikradeeda inay burburto da'da oo weynaatay gabadha oo weynaatay dhiiggan caadadee mar walba soo marayaay uu dhaawacaa mar walba wakhtigiisu dheeraado inay gabadhnimadii iyo bikaaradu burburto way dhici kartaa saas darteed bikaaradu hadday u burburto waxaan galma ahayn markii soomaaliya gabadh ma ahayn la yidhaahdiyo markii sharciga gabadh ma ahayn la yidhaahdo halkaa waa ku kala duwanaanayaan saa darteed dhow sharcigu wuxuu u baahanayaa in la eego qadiyadaada la dhegaysto oo horta soo cadee baa lagu leeyahay gabadh inaad waanaa gabadh baan hadday tiraada isaga ay reeraysto waana qalgal intaasaan wada joognay waa iman haddii aadan marka hore taabateen baaris caafimaad iyo xaqiijin baa loo diri lahaa haddii isxagxagasho iyo iskule dheg xoola timaado kadib waxaa la soo xaqiijin lahaa waxa sababay xaalad bay culummada fuqahadeennu ka doodaan labada dhinac kee la raacinaya hadday bikaaranimadu ku burto gacan aan galmo ahayn fuqahadu waxaan idhahdaa markaad qaadi iyo dhakhtar iyo boolis noqoto waxba suu kuu soo marayo waxay dadku ka yaraayaxixi jireen baa caadi kuu noqon ka fatwo dhacdo dadka shu-uuntoodii diinay ugu baanaahayeenoo meelo kasta a maalin kasta lagu weydiin si maalin kasta lagu weydiiye caadi bay kuu noqon adiga wixii wax badanood la yaabi jirteen halkan soo caadi idinma noqon markaad la noolaateen wax badan baa annagu iskala noolahay oo masaa'ilkaas haddii gacan la isticmaalo ama wixii lamida gacmihii hadda waxaa lamida waktigeennan haddii cinjir iyo caag la isticmaalo oo gabadhu intay isticmaasho bikaaranimadeedii burto galmo maaha uu xaaraana tii zinadii iyaan ka hadlayaa tu xalaal oo xilannimo ahana maaha waxay waagi hore ahaan jirtay dee gacan baa la isticmaalay wixii kale noocaasoo dhan baabul istimnaa bay gashaa hadday saa ku burto ma garoob bay noqon mise gabadh bay noqon qawlaani liahli ilcilmi hadda ninka qaadigeed u tagta kala rajaxan buu hadhow kugu xukumi doonaa